intaanan guda gelin barnaamijka xaflada kow horta waxaan idinku dardaarminayaa nafteyda iyo naftiinaba alla ka cabsi ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno ilaahu laga cabsado waxaa lagu helaa liibaan adduun iyo mid aakhiraba marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno qodobka labaad magacayga waxaa la yidhahdaa Khalid Maxamuud Cali waxaan ahay agaasimaha guud iskuullada la yiraahdo ama la isku yiraahdo Al-Huda Huda wuxuu leeyahay primary iyo secondary isku meel ku yaala wuxuuna ku yaala xaafadda J6 waxaa kaloo hadda kusoo ziyaaday iskuulkan Al-Amal ama Amal Integrated Academy wuxuu ka mid yahay iskuullada Huda waa farac iskuullada Huda ka mid ah marka agaasimaha guud ee iskuullada Huda la isku yiraahdo waxaan ka ahay agaasimaha guud marka hadalka inaan dheereeyo ma rabo horta waan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka aad kasoo wada qayb gasheen marti sharafka waalidiinta macallimiinta iyo ardayda dhammaantiinaba waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen xafladan ayada ah iskuulkan Al-Amal taariikhdiisa haddaan dib ugu laabto waxaa la aasaasay 2009 waxaa lagu bilaabay dugsi qur'aan iyo meel luqadda carabiga laga barto ay ahayd intaasay sana uu iskuulka furnaa waxaa ka qalin jabisay ama qur'aan ka baratay 8 dufca ama 8 jeer ayaa arday ka qalin jabisay oo qur'aanka xifdisay oo dhammaysay waxaa kaloo ayadana muddada 10 sano uu furnaa ama ay furnay madrasatul amal waxaa luqadda carabiga ka bartay oo ka qalin jabiyey oo shahaado ka qaatay 15 koox ama 15 dufcadood ayaa luqadda carabiga ka baratay oo shahaadooyin ka qaadatay waa dadaal aad iyo aad u weyn waa 15 dufcadood oo carabiga baratay oo shahaado ka qaadatay waa shaqo aad iyo aad u badan oo ay madrasada soo qabatay 8 dufcadood oo qur'aanka dhammaysay ayadana waa waxaan la heli karin madrasatul amal waxaa carabiga iyo qur'aanka kadib waxaa haddana loo bedelay ama lagu soo ziyaadiyey manhajkeeda ama programkeeda tarbiya al-islaamiya in diini laga barto sida fiqiga xadiista siirada wax waliba oo diinta ku saabsan alxamdulilah sanadkan 2020 ilaahay wuxuu agood nagu siiyey ama uu fikirkeedana siiyey in aan ku soo ziyaadino iskuul lagu dhigo ama laga barto maadi iyo diini labadaba marka 2020 waa ziyaado kale ama horumar kale iskuulkan gaaray bacdama uu dugsi qur'aan kali ahaa كبعد اللغة العربية بقى لغوصو كورنيي كبعد التربية الإسلامية لغوصو كورنيي هادانا قيبتي سكولكا يالله ما يستري مركا سكولكا هذا وحا كدب واسكول وحولي بقولنا ما يستران وحول هانتونا بريماري إلى كلاس 8 شهادة 8 تلقى قالون دونا إن شاء الله إلى هدو إذمو سكول سارنا هدو إلهي عمري نسيو والله فوري دونا ama iskuulka Huda secondary ama jiraabo iskuulkan hoostaga marka insha Allah ardayda 8 ka qalin jabisa ama arday waliba oo inta ka qalin jabiyo oo damco inuu u baaso form 4 ama uu aado yani iskuul dugsi sare aado iskuul Huda secondary ayaa furan hadii loo baahdo in meel kale loo furana insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala haduna waafajiyo ayadana waan furayna
marka bulshada reexaga dheer waxaan ku boorinayaa ama aan u sheegayaa kow waxbarashada laba qayb ay u kala baxdaa mid waajib iyo mid sunno ah midda waajibka ah waa shariicada diinta oo la barto oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahay al-ilmu fariidatun ala kulli muslimin wa muslima aqoonta ama waxbarashada diiniga ah waa waajib waxayna waajib ku tahay qof kastaba oo muslim ah oo rag ah iyo qof kastaba oo muslimad ah oo dumar ay waajib ku tahay kan maadigana waa sunno qofka muslimka inuu barto waa loo baahan yahay Amal Integrated Academy marka cilmiga waajibka ahaa iyo kii sunnada ahaa labadaba waa laga helayaa waana laga baranayaa oo ugu horeeyo quraanka kariimka waagii hore dugsiga wuxuu ku dhex ooli jiray ama uu ka dhex dhisnaa iskuulka madrasada dhexdeeda hadda alxamdulillah meel gooni ah loo raray qaybta xag ka soo horjeedo albaabka ayaa dugsiga loo wareejiyay gudaha waxaa loo baneeyay oo kali ah waxaa loo baneeyay iskuulka si nafaas iyo loo helo meel ardada ay ku kala nafisaan marka insha Allah waxaan idin leeyahay iskuulka ku soo dhawaada inta iskuulka arday u dhigatana waxaan idin dhihi lahaa iskuulkan ama meel waxbarasho waa meel dan guud oo bulshada dhan ka dhaxayso qof shakhsi ah gooni uma laha marka cid idin kale iskuulkan male anugaaga hadduu ka wax baranayo cid adig kale malaha macalinka meesha joogo waxaa laga yaabaa inuu mishaar ka qaadanayo oo keli ah laakiin qofka faa'iidada weyn kala tagaya meesha waa qofka aqoonta ama cilmiga ka kororsanaya meesha marka inta arday meesha u dhigato ama carruurtooda meesha joogto waxaan idin leeyahay oon idinku dardaarminayaa iskuulka ha la xoojiyo gacan midigana ha lagu qabto waayo dheriga markii dabka la saaro ama dheriga dabka la saaro ee karayo wuxuu u baahan yahay saddex dhardhaar ama saddex dhagax oo derbiga oo dheriga reebta saddexda dhagax waxaa lagu mathalaa waxbarashada waa noocaas camal mid waa macallimiinta dhagaxa kalena waa waalidiin kan saddexaadna waa ardadii marka ardada macallimiinta iyo waalidiinta waxaan ka codsanaynaa dhammaantooda inaan gacmaha isqabsanno dadaalno iskuulkeena aan garab istaagno aan nooleyno aan waxbarashadeena kor u qaadano marka insha Allah waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo iskuulkooda camal ay u aaminaan oo wax waliba oo ziyaado ah ama tala ah oo wanaagsan ay maamulka la wadaagaan hadalka inaan badiyo ma rabo iskuulka insha Allah maanta wixii ka dambe waa caadi wuxuu iskuulnimadiisu u bilaabanayaa wuxuuna ku shaqayn doonaa manhajka caadiga dawladdu ku shaqayn jiray ay ku shaqayn jirtay waxay ka bilaabato xaflada wixii ka dambe casharadiisii ee nidaamkiisa iskuulnimada ay bilaabanayaan inta qur'aan ka baranaysa ama qur'aanna u soo raacdayna qur'aanka wali sidii u taagan yahay ardayga iskuulka dhiganaya qur'aanku barani karaa subaxdii ilaa 2 saac iyo uu qur'aanka soo qaadan karaa wixii ka dambe iskuulkiisa u imaanaya galabkii casir markii la tukado ka bacdi anugu wuxuu aadayaa iskuulkiisa dugsigiisa hadduu qur'aan baranayay wuu soo laabanayaa marka insha Allah aan dadaalno al-amal maamooyinka iyo aabayaal dhammaan iyo waalidiinta meesha joogto waxaan idinka codsanaynaa iskuulkan gacan midigan ku wada qabanno aan kor u qaadno sumcadiisa aan ilaalino aan isku kaashanno hadduu sare u kacona iskuulka anaga aan leenahay sare u kacaway hadduu hoos u dhacana anagu naga dhacay marka insha Allah hadalka ma badinayo dhammaan inta ka soo wada qayb gashay aad ay u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh